haweenaydii ayaa gadaal u jeesatay waxayna aragtay tuubo bir ah oo miisaankeedu culays yahay oo si xoog leh ugu soo dhacaysa. Isla markiiba way istuurtay dhulka si dirqi ah ayayna uga badbaaday. Laakiin dadkii kale ee hoos marayay nasiib ma aysan yeelan. Qaar waa la tuuray oo dhulka ayaa ku dhacay, qaar kalena si daran ayay u dhaawacmeen. Ka hor intaysan falcelin khatar kale ayaa dhacday. Wiish ayaa si toos ah ugu dhacay dhismaha, gees ka mid ahna isla markiiba wuu dumay. Haweenaydii waqti uma helin inay cararto, wayna dhacday. Iyadoo quus ah ayay qabsatay xadhigga telefoonka, balse xadhiggu ma qaadi karin culayskeeda, wuuna goy. Waxay u siibatay cirifka dhismaha, masiirkeeduna wuxuu noqday mid aan la hubin. Xilligaas weriye ayaa ka hooseeyey goobta oo qabtay muuqaalka, wuxuuna garwaaqsaday inay tahay gabadha askari booliis ah oo degan agagaarka. Markii uu maqlaa warka, askarigii booliiska ahaa ayaa isla markiiba qaatay kamarada, korna u eegay gabadhiisa isagoo si aamusan u ducaynaya. Hase yeeshee khatartu way sii socotay. Miis ayaa si lama filaan ah cirka uga soo dhacay, ilbiriqsiga xigayna haweenaydii hawada ayaa loo tuuray. Nasiib wanaag waxay ku guulaysatay inay qabato tuubo bannaanka ka soo baxday wakhtigii ugu dambeeyey. Laakiin khatar ka sii weyn ayaa degdeg u soo dhowaatay. Wiishkii ayaa ku socday xawaare aad u sarreeya, ugu dambayntiina haweenaydii waxaa ku dhuftay jug aad u weyn oo hawada ku tuurtay.